wasaaradda caafimaadka biyaha Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka hirgelisay shaybaar u gaar ah baaritaanka biyaha si wax looga ogaado tayada biyaha iyo isticmaalka bulshada ku dhaqan gudaha magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland. madaxa xafiiska tayeenta biyaha Maxamed Cali Cabdi oo la hadlay Radio Kismaayo ayaa sheegay in shaybaarkan uu fududeeyay baaritaanka lagu sameeyo biyaha oo markii hore meelo kale loo qaadi jiray. shaybaarkan ayuu sheegay in awood uu leeyahay dhinacyo badan in wax looga ogaado sida tayada biyaha, cudurrada biyaha aan nadiifka ahayn laga qaado iyo waliba macdanta ku jirta biyaha oo mararka qaar waxyeeleyn karta caafimaadka biyaha. waxaan qaadnay 82 taste oo tijaabo oo aan baaritaan sameeynay. inta ugu badan waxaan ka sameeynay degmada Kismaayo. waxaan ceelasha oo riiga ama boholiska dadka u yaqaanaan aan baaritaan ku sameeynay, ceel gacmeedada baaritaan ku sameeynay, tuubooyinka supply shirkadaha biyaha bixiyaan ku sameeynay, kuwa botoliska oo hadda dadka cabaan oo shirkadaha ay sameeyaan oo sajalaatay sana soo kala ayagana dadka baaritaankooda hadda socda. biyaha marka inta baaritaan aan sameeynay inta ugu badan waxay noqdeen contaminated ama biyo wasakhaysan oo caafimaadka ku habbooneen. shaybaarkan oo la hirgeliyay sanadkii aanu soo dhaafnay 2022 ayaa hadda shaqeynaya muddo dhan 8 bilood waxaana si joogto ah uga shaqeeya 5 qof oo loo tababaray baaritaanka iyo badqabka biyaha. xanaanada laga qaadi karaa laba ay isugu jiraan. mid waa mid shuban biyoodka Kismaayo la socoto muddooyinka ugu dambeeyay dhan sida hay'adaha dawladda iyo hay'adaha caafimaadka isla og yihiinba in daacun u dilaacay ama shuban biyood aad u daran. kuwa kale waxaa jira oo daily ah oo farmasiyada laga daaweeyay haday noqoto ishak typhoid iyo waxyaabo la xiriira xanuuno badan waxaa jira dadka aad ay ula jiifaan laakiin hadda maadaama dadka dhaqso soo ridanayn saameyn ayagana dadku la haajira. dhismaha shaybaarkan waxaa hirgelintiisa ka caawisay wasaaradda hay'adda GIZ waxaana qalabaysay hay'adda IOM. baaritaanada waxaan ka sameeynay degmooyin badan inta badan degmooyinka Jubbaland haday noqoto degmada Kismaayo haday noqoto gobolka Gedo degmooyinkiisa kala gedisan degmada Dhobley Afmadow areas ila diif dhan ka sameeynay oo safar badan ku bixinay si aan u ogaano maadaama markaan Kismaayo marka hore ka bilawnay Kismaayo marka ogaanay biyaha xaaladda sayta aan u gudubnay hadda degmooyin kala si aan u hubinay ayagana